إنا لله وإنا إليه راجعون كل النفس ذائقة الموت نف والبو ويدمنيسا marka anagana halkan waxaan u imaanay walaasheen inaan garab istaagno إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت نف كستا oo nool moodka way dhimeenaysa hada jaa ajaluha la yastaqiruna saacata wala yastaqdimun qofka maalintiisa maalin loogu madaraayo waxaan halkan tacsiyo tiraan ugu dirayaa umruta aan la qabsanaya walaasheeda Shaadi Sharaf oo aabaheeda ku geeriyooday magaalada Muqdisho gaar ahaan isbitaalka Aadan Cade hadda ayaan u soconaa tiimkan xaq ay jiraan Idriiska iyo Taabo ما شاء الله horta maanta walaasheena Shaadi Sharaf aabaheeda geeriyooday waxaan leenahay macnaha jannada firdaws Allah ka waraabiyo asxaabta hadda u sii socnaa waxa waay isbitaal Aadan Cade oo ku dhintay waxa waay adiga iga hormar ka dambeeyay waay waa meeshiis Ilaahay oo roonay wadaadku waxa waay unukun waxa waay gadaasha Ilaahay min fidneeyo marka idankan waxa waay video si share gareeya una soo duceeya Shaadi waa qof wanaagsan oo qalbi fiican oo qalbi wanaagsan marka waxaan ku codsanayaa dhamaan inta aan iman karin inay u soo duceeyaan anagan ilaa aan ka soo dugno garabkeeda kama tagi doono waan taagnaan doonaa insha Allah idoo maalin badan ay garabna siisay waxa qasab ah marka in anagana garabkeeda aan istaagno walaasheena Ilaahay idan qalbiga u qaboojiyo aabo waa dareemi karnaa muhiimada uu leeyahay nolosha uu leeyahay marka Ilaahay ha u naxariisto amiin amaantiin amiin kusoo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan halkan tacsi tiiraay leh kala qaybsanayaa walaashay Shaadi Cabdullaahi Abuukar oo maanta magaalada Muqdisho ku geeriyooday aabaheeda waxaan leeyahay Shaadi qalbiga Allah ku qaboojiyo insha Allah waxaan rajaynaynaa dhammaan دهنا نحن بعد السوشيال ميديا إن أبى الله عن تسمية كسيو كتابك جلنا فردوس إن شاء الله ونقول عيننا أنا وحقولنا نحن سمري من الله كسيو إنا لله وإنا إليه راجعون هل كانوا حربا إنا تعسيو إن walaasheen Shaadi Sharaf aabaheeda waxaan leeyahay ehelkii iyo qaraabadu ku geeriyooday sabar iimaan Ilaahay naga siiyo Ilaahay aydiis quraanka kullu nafsu daaqatan naf walbo way dhimanaysaa marka anagana halkan waxaan u imaanay walaasheen inaan garab istaagno marka dib dhaco in soo garab istaaga muhiim ah marka waxaan leenahay dhamaanteena sabar iimaan Allah naga siiyo halkan tacsiirkaas aan ugu dirayaa Shaadi Sharaf iyo ehelkeeda geeridii ku timid Allah naxariisto Shaadi aabaheeda Cabdullaahi Abuukar maanta halkan waxaan u joognaa in halka kuwaas naxaleenahay Allah u naxariisto mudooyinkan waa uu xanuunsanayay dhamaanteen maanta markaas waxaan gudanaynaa waajibaad markaan saarnaa waa inaan ka soo qabgalno haday Shaadi ay tahay wadaagannahay sidaa daraadeedana aad baan markaas ugu xunahay waan ugu tacsiinayaa إنا لله وإنا إليه راجعون وراجعنا maanta geeriyooday Shaadi aabaheeda Allah u naxariisto marka hore dhammaan qoyska Shaadi waxaan leenahay waa kula dareemaynaa xaaladda maanta ku haysata qof walbana ay qabsanay marka Allah u naxariisto waan u wada duceynaynaa insha Allah